بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. ummadda muslimiinta meel kastoo joogtaan soo dhawaada. waxaan idin hayaa darinka aad iyo aad aroortii u cajiiba idinka caawinaya inaad caloosha dadka caloosha weyd culayska ku qaada dadka buurtay ee caloosha buuratay intaba nuugaya. waxaan u baahannahay lemontaa, waxaan u baahannahay jinjartaa, waxaan u baahannahay jia seedka, waxaan u baahannahay kayana beebarka halkaasaan kusoo shubay isaga. waxaan u baahannahay malabka, waxaan u baahannahay malabka maasha allah. marka hadda waa kan jia seedkii oon soo diyaariyey maasha allah, liindhanaantii oon diyaariyey qaabta badankeedii maasha allah. faa'iidada jia seedka lama soo koobi karo, waa high in fiber, borotiin bay leedahay, waxay ka kooban tahay waa waxyaabaha absorb gareeya biyaha badan. markaa xataa filing bay caloosha u samaynaysaa, muddo dheer gaajoon maysa haddaad iyada keligeed 2 malqaacad ka cunto ama 2 malqaacadood. omega acid fatty wax la yidhahday leedahay oo aad iyo aad ugu wanaagsan, immune systemkay dhistaa. faa'iidada bahasha yar ee madmadow ku jirta lama sheegi karo maasha allah. sugarkay balance garaysaa, waxyaabo badan bay dadka bini'aadmiga u tartaa, digestionkay ka qayb qaadataa maasha allah. faa'iidada ku jirta taa lama iyada faa'iidadeeda lama koobi karo. waxyaabaha biyaha nuugay ka mid tahay ee ballaadha, waxyaabahaasina caloosha markaad geliso saasoo kale ayay muddo dheer ugu jirayaan oo u joogayaan. waxaa kaloon u baahannahay jinjarta oo ah iyaduna number 1 anti inflammatory weeyaan. iyadu noosiyaha way biisaa, fat burn bay leedahay, waxay reduce garaysaa cholesterolka, blood pressureka, waxyaabo badan bay tartaa maasha allah. faa'iidadeeda lama koobi karo. digestion systemkay caawisaa, waa jinjartii iyadu maasha allah. faa'iidada ay noo leedahay bini'aadmiga lama koobi karo. liverkay wax ka tartaa, high blood pressurekay wax ka tartaa, dhiiggay sifaysaa maasha allah. lemontana waynu ognahay vitamin oo tan lemontii vitamin c bay leedahay, vitamin c fara badan bay leedahay meel kale ku jirin. inta badan aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay, dhiiggay sifaysaa iyaduba. bloatinka iyo waxaasoo dhanna way ka hortagtaa maasha allah. aad iyo aad bay u wanaagsan tahay lemontu. dadka doonaya inay weydka luusaan waxbay u tartaa, qiimaheeda lama koobi karo iyada laftirkeeda. marka alaabtan waxaan ugu talagalnay aroorta hore qofku markuu soo tooso malabkaasaan ku daraynaa, waayo malabka waxaan sheegnay inuu isagu sonkor leeyahay, laakiin sonkortiisu waa nooc faa'iido ayaa ku jirta oo maaha nooca sonkorta caadiga cadoo kale oo isbaagaraya, laakiin waa dawo in yar inaad ka qaadato iyo isagana lagaaga baahan yahay. laakiin isagu immune systemkuu dhisaa, low kala wuxuu leeyahay sugarka beerku u baahan yahay iyuu regulate gareeyaa. glucoseka oo fat burning buu sameeyaa, waayo liverkeenu wuxuu u baahan yahay glucose wax ku burburiyo. marka isaga laftirkiisu ciyaar maaha, laakiin de wixii dawo ah ma qaadan kartid. 10 midho capsule maalintii ma qaadan kartid, laakiin wax yar baad ka qaadanaysaa. kayana beebarkan isagu faa'iidadiisa lamaba soo koobi karo. kayana beebar basbaaska la yidhaahdo temperatureka jirkuu kiciyaa, wixii temperatureka jirka kicinayaana aad iyo aad ayuu ugu wanaagsan yahay jirka. markuu qofku kululaado xataa wuxuu luusayaa jirka oo dhan baa waxay dhiiggaa wada dhaqaaqaya. marka maasha allah hadda waan isku dardaraynaa, waan cabbaynaa maasha allah. hadda waxaan u baahannahay 2 malqaacadood oo taas ah jia seedka, intaa in leeg oo ah jinjar, kan iyadana intaa. qofba intuu doonayo lemonta isagaa kaa yaqaana. kayana beebarka waa malqaacadda yar isaga caaradeeda uun in yar oo aan waxba ahayn.
waayo dadka qaar baan kulaylka xamili karin maasha allah malabkii qofku hadduu macaan leeyahay hadduu cudur leeyahay dhakhtarka isagaa la xidhiidhaya waxaan waa dadka caafimaadka qaba qofkii xanuun leh qofkii macaan leh qofkii dhiikar leh laakiin intaniba caafimaad baa ku jira malabka mooyaane malabka qofkii macaan leh wuu yaraysanayaa kii kale wuu yaraysanaya mar walba isaga waa la yaraysanayaa laakiin wadinkaa arkaya nimcadaasaa qofku aroortii ku dhufanayaa hadduu doono half an hour intaanu wax cunin ka hor maasha allah umalayn maayo in qof caloosha aad iyo aad iyuu u dhimaysa caloosha qofka bini aadmiga ah caloosha dadka ku qaaday weydka iyo dadka buurta ah caloosha alaabtan ha cabaan aroor walba maasha